ayaa ka soo baxaya qarax barqanimadii maanta ka dhacay afafka hore bar control oo ku taal wadada aada garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho. qaraxa ayaa ka dhashay gaari nooca raaxada ah oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa kaas oo ku qarxay halkaasi. in ka badan 10 qof ayaa ku dhimatay qaraxaasi halka ay ku dhaawacmeen 20 kale kuwaas oo isugu jira shacab iyo askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya. xilliga uu qaraxa dhacay ayaa waxaa la sheegay in goobta ay ahayd mid aad u mashquul badan waxaana baaritaan uu ka socday kontaroolka ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin agagaarka isgoyska kiiloomitir 4 ee magaalada Muqdisho. sidoo kale dab ka dhashay qaraxa ayaa qabsaday kaalin shidaal iyo dhismayaal u badan ganacsi kuwaas oo uu soo gaaray burbur xooggan. war ka soo baxay taliska ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa si kooban looga hadlay qaraxaasi. qoraalkan oo ay barteeda Facebook soo dhigtay taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sakiye Xuseen Axmed ayaa lagu sheegay in gaariga qarxay nuuciisu uu ahaa Toyota Noho isla markaana uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. abaarihii 4:40 subaxnimo ay ahayd ciidanka ammaanka markii ay ka hortageen baabuur nuuciisu yahay Toyota Noho ah oo doonayay in uu xoog ku maro jagboonti ku yaala kiiloomitir 4 halkaas oo uu ku qarxay. waxaa qaraxaas ku dhintay askar iyo dad shacab ah qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen ayaa lagu yiri warka ka soo baxay booliiska Soomaaliya. dhinaca kale al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxan sida ay ku baahiyeen barahooda internetka. al-shabaab waxa ay shaaciyeen in bartilmaameedkoodu uu ahaa kontarool ciidamada dawladdu ay ku leeyihiin nawaaxiga lambar 4 isla markaana ay halkaasi ku dileen askar ka tirsanaa ciidanka dawladda sida ay hadalka u dhigeen.